السلام عليكم. maanta waxaynu mowduuc yar oo kooban kaga hadli doonaa taariikhdii Dr. Ibrahim Al-Fiqi inagoo ka eegana dhinacyo fara badan. mowduucanan maanta waxay idin soo gudbinayaan uga howlaalkiin Cabdimajiid ku soo dhawow. إبراهيم محمد سيد الفقهي waxa uu dhashay 5 August 1950 xaafadda Victoria magaalada Iskandariya ee dalka Masar. waxa uu shahaadadiisii u horeysay ee digriga uu ku diyaariyay kulliyadda dalxiiska iyo hoteelada. kadib qalinjebintiisii jaamacadeed waxa uu isaga iyo xaaskiisa u socdaaleen dalka Canada isagoo damacsanaa inuu ka soo barto aqoonta maamulka, halkaas oo uu ka bilaabay shaqooyin aad u yaryar oo uu ku maareeyay naftiisa. shaqooyinka aadka u yaryar oo ay ka mid ahaayeen inuu dhaqo ama uu maydho weelka ama saabaanka hotel ka mid ah hoteelada dalka Canada. Ibrahim oo sii waday shaqadii uu ka hayay hoteelka ilaa uu shaqadii weel dhaqida uu ka gaaray meel aad u sareysa oo uu noqday maamulka hoteelka. kadib waxa uu ku guuleystay abaalmarinta maamulaha hoteelada ugu fiican ee lagu bixiyo waqooyiga Amerika. intaa kadib waxa uu noqday mid ka mid ah dhiirigeliyaasha dalka Canada iyo dhammaan wadamada Carabta. haddii aynu yaro jaleecno dhiganayaasha ama buugaagta uu qoray Ibrahim Al-Fiqi, waxaa ka mid ah dhiganaha ugu magac daray Saydar calaa Xayaatik. dhiganayaasha ama kutubta Ibrahim Al-Fiqi waxaa lagu turjumay luqado fara badan oo ay ka mid yihiin luqadda Ingiriisiga, ta Faransiiska, luqadda Kurdida, luqadda Indoneesiyaanka. dhiganayaashiisa waxaa laga helayaa meelo badan sida kaydka qaranka ee librariga ee dalka Canada. haddii aynu jaleecno hadaladiisii dhaxalgalka noqday waxaa ka mid ahaa dadka ceebahooda ku aqbal si ay ceebahaaga kuugu aqbalaan, indhahaagu keliya waa ilis noqodka afkaartaada. markasta oo horumar gaadho way ogaan doonaan dadka saaxiibada ahi qofka aad tahay, laakiin markasta oo aad hoos u dhacdo waxaad ogaanaysaa cidda saaxiibka ah. qofka isku kalsoon waxa uu leeyahay qosol ka duwan kuwa kale. ugu dambeyntii Ibrahim Al-Fiqi waxa uu dhintay 10 February 2012 maalin Jimco ah, halkaas oo uu dab ka kacay gurigiisa kaas oo u sabab noqday inuu naqasku ku dhago Ibrahim, halkaas oo uu ku allaystay. Ibrahim waxa uu ka tegay gabadhiisa iyo 2 hablood oo la kala yiraahdo Nancy iyo Nermin. inta aynu ku kulmayno mowduucan xiga waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.